warar si hoose loo soo dusiyey oo ay soo warisay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muujinaya isbeddel weyn oo ku yimi mowqifka Mareykanka ee ku wajahan Tehran. Isbeddelkan degdega ah ee uu sameeyay maamulka Trump oo muddo dheer ku jiray siyaasad cadaadis badan ayaa muujinaya adkaysi aan la filayn kaasi oo ku aadan dagaalka lagu jabinayo qabka weyn ee Iran iyo waliba doonisteeda. Tilmaamaha hadda imaanaya ee ka soo baxaya wadahadallada ayaa xaqiijinaya in Washington ay bilowday inay ka soo digto shuruudaheedii adkaa isla markaana ay muujisay dabacsanaan isa soo taraysa taasoo u ogolaanaysa Iran inay sii wadato oo hore u sii ambaqaado una dhaqaajiso howlaheeda nuclear-ka ee nabadeed ee xadidan iyadoo markaasi ay kormeerayso hay'adda tamarta atomikada adduunka taasi oo ka dhigan dib u gurasho cad oo ka dhan ah halkudhigyadii ahaa in gebi ahaanba la burburiyo mashruuca nuclear-ka Iran kaasi oo dadaal weyn ugu jiray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. loolanka ka dhanka ah balaayiinta la qaatay oo miiska wadahadalka saaran. Arrinta dhaqaalaha ayaa dood weyn dhalisay isla markaana shaaca ka qaaday waxyaabo la yaab leh oo midkii ugu horeeyay ee wareegani muhiimka ah ee wadahadallada ayaa lagu soo bandhigay iyadoo ilwareedyadu ay muujinayaan farqi weyn oo aad u qoto dheer oo ku sii kala fogaanayaan labada dhinacba inkastoo uu jiro tanaasul weyn oo uu Mareykanku sameeyay. Washington ilaa iyo hadda si rasmi ah ayay ugu ogolaatay inay u sii dayso Iran dhaqaalaha ka xaniban 25% kaliya ee dhaqaalaha Iran laga xanibay ama rubuc hantida Iran ee lagu xayiray dibadda iyadoo la sameynayo jadwal marxaladaysan oo isxigxiga gaar ahaan habsami u socodka maaliyadeed iyo waliba horumarka arrimaha kale ee la xiriira waxyaabaha ay Iran doonayso. dhanka kale Tehran waxay diidaysaa habkan Mareykanka ee si tartiib ah loo sii deynayo dhaqaalaheeda ku xaniban dibadda waxayna dalbanaysaa in si buuxda oo degdeg ah loo sii daayo dhammaan lacagaheeda iyada oo aan la xadidin ama shuruudo hordhac ah lagu xirin iyadoo muujinaysa soo celinta hantidani inay tahay xuquuq sharci ah oo asaasi aan laga maarmina oo lama huraana si loo gaaro heshiis wax ku ool ah oo dhexmara labada dhinac. Tehran iyadoo aysan sameyn wax tanaasul ah gaar ahaan waxyaabaha taabanaya madaxbanaanideeda tiknoolajiyadeed ayaa labada dhinacba waxay ku heshiiyeen istiraatiijiyad dib loogu dhigayo arrimaha ugu adag loona dibdhigo wareegyada dambe iyo waliba marxaladaha kale ee wadahadallada si looga fogaado ismariwaaga taagan iyo horumar la'aanta ku habsatay habsami u socodka shirka labada dhinac si ay u gaaraan heshiis hordhac ah oo Mareykankana ka fujisa neefta ku dhigan. waxyaabaha dib loo dhigayo ayaa waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan kobcinta uranium-ka ee mustaqbalka iyo mustaqbalka xarumaheeda xasaasiga ah ee Iran leedahay halka dabacsanaanta Mareykanka ee hadda jirta ay ku koobneed kaliya aqbalida howlo nuclear oo nabadeed oo ay kormeerayaal caalami ah. Iran dhankeeda waxay kor u qaaday khatarta iyadoo si cad u diiday inay burburiso xarumaheeda taasoo keentay in maamulka Mareykanka uu galo xaalad adag taasi oo ku qasabtay Iran inay dalbato damaanad sharci ah oo adag oo ka hor istaagi doonta Washington hadhow inay ka baxdo heshiis kasta oo mustaqbalka ah sida ay samaysay xilligii ugu horeeyay ee Trump.